Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelkan ee Somali VIP Salt. Halkan aan ugu bartay mar walba inaan isu gudbino muuqaalo ku saabsan abka One Xbet ama geemam ku saabsan abka One Xbet gudihiisa ah. Maanta waxaan idin wadnaa geem kale oo cusub oo aad iyo aad u fudud ah. Sida hore aad ugu bartay inaan isu gudbino mar walba geemam fudud oo lacag fara badan laga sameeyo karo One Xbet gudihiisa. Maanta waxaan idin wadnaa mid ka mid ah geemamka ugu fudud ee One Xbet gudihiisa ku jiro lacag fara badan laga sameeyo karo. Markaas aan soo gasho One Xbet searching sida hore asma jirta aad tagaysa kadib searchingka waxaa ku qoraysaa iOS DM tal ku qoran marka ku qortid kadib waa searching gareynaa kadib gameka afkiisa horsaan oo yaala kadib marka ku soo baxo waxaad sameynaysaa lacag inta adiga jeceshahay ayaa saarinaysaa leynaysa badka ayaa saxanaysaa sida hore casharadii hore aan ugu baray leynaysa badka inta rabtid ka dhiganay meesha oo spinning ku qoran tahay waa meesha tourist stop ada istaagtin waa istaajisay sida hore aan ugu sharxay waay mar walba aniga waxa u joognaa inaan isu gudbino muuqaalada ama geemam ku saabsan One Xbet oo hanti badan aad sameyn kartid mar walba inaad khasartid ma ahan mar walba waa guuleysan doontaa insha Allah hadaa aniga nagu xiran tahay kaliya subscribe tii like tii share tahay iloowen saaxiibkaagana mar walba ku khasaar adiga camal la wadaag waxaa la joogaa 2025 waxaa la gali doonaa 2026 mar walba inaad khasartid laazim ma ahan waa inaad guuleysataa khasaaraha xilliga khasaarada waa laga soo tagay waxaad joogtaa dalak VIP Salt ama Somali VIP Salt oo u joogto guushaada sidoo kale waxaad leedahay channel Telegram halkaas oo kusoo gudbino muuqaalada iyo tartamayaal usbuuc walba waxaa bixina isbeen firiya ilaa 10 qofood haddii aad inaad kamid noqoto guuleystayaasha kaliya Telegram ku qor Somali VIP Salt ama Lak VIP Salt oo ku soo bixi doona sidoo kale TikTok follow noo soo dheh like share tan haylowan saaxiibkaagan la wadaag guuleysta dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. BTK wuxuu soo saaray xarig ubatay wuxuuna bilaabay inuu qoyskii mid u xiro aabihii ayuu ka bilaabay kadib hooyadii ayuu ku xejiyey ugu dambaynna labadii carruurta ahay ayuu xiray qoysku dhammaantood ayuu hoggaansamay fikradiisii iyagoo filayay in marka uu qaato waxa uu rabo uu iska tegi doono isla markaana uusan waxyeelo u geysan doonin ayay qoyskii dareemeen in ninkan uusan doonayn waa xarig iyo handadaad oo keliya balse uu wax ka weyn doonayo. BTK wuxuu watay boorsadii ayuu ku soo saaray bac kadibna wuxuu madaxa u geliyey aabbihii isagoo bilaabay inuu ku ceejiyo waxay ahayd markii ugu horeysay ee BTK uu isku dayo wuxuu ku guulaystay inuu xakameeyo kadibna uu ceejiyo ilaa uu ka dhintay xitaa markii dambe intii lagu guda jiray maxkamadayntiisa wuxuu sheegay inuu dadaal ku bixiyey Joseph sida xalay oo nafta u dhaafay xitaa sheegay inuu barkin u hooseeyay madaxa markii uu dilay Joseph BTK wuxuu ku baraarugay inuusan wadan maaska ama wax wajiga u qariya sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu dhammaan qoyska ka takhaluso si ay maadaama ay sameeyeen wax kasta oo uu ku amray taasi uu isagu u arkayay dibin muujinaya inay dilka u galaayeen kadib markii uu aabbihii dilay wuxuu u soo jeestay hooyadii isagoo bilaabay inuu iyadana ceejiyo waxay bilowday inay baryootanto iyadoo u ballan qaaday inaanay cidna u sheegi doonin isla markaana uu guriga ka qaato wax kasta oo uu rabo si kastaba ha ahaatee baryadeedu maysan miro dhalin wuxuuna markana bilaabay inuu ceejiyo ilaa ay ka dhimatay isagu wuxuu sheegay in intaas oo dhan uu dareemayay agta haystay isagoo daawanaya ilaa intii uu ka dhimanayay intaa kadib waxa uu hartay gabadhii yareed oo keliya gabadhan waxay ahayd qofkii ugu badnaa ee ciqaab adag kala kulmay BTK dhowr jeer ayuu ceejiyey mar kasta oo ay kulmo gasho dib ayuu u kicinayay markay soo kacdana mar kale ayuu ceejinayay ilaa ay kulmo kale ka gasho ugu dambayn wuxuu qaaday gabadhii wuxuuna geeyey qaybta hoose ee guriga oo ahayd qol kaydka ah halkaas waxaa ku dhex yaalay tiir ka samaysan balastig wuxuu ku xiray gabadhii iyadoo inta badan jirkeedu qaawan yahay kadibna wuxuu ku yidhi qoyskaaga ayaad ka daba tegaysaa waxaadna u raacaysaa jannada intaa kadib wuxuu soo qaatay xarig dheer wuxuuna gabadhii yareed kaga xiray qoorta kadibna wuxuu soo qaatay kursi wuu fadhiistay wuxuuna bilaabay inuu si tartiib ah u jiido xariggii intii ay gabadhii yareed ku sircaysay nafta isagu uu ku raaxaysanayay sirca ay gabadhan yar marayso markii dambe intii lagu guda jiray maxkamadayntiisa wuxuu gartay inuu dareen gaar ah ka helo marka uu arko qof naftu ay ka baxayso oo sircaya gabadhii yaray sidaas ayay u geeriyootay kadib wuxuu xaday gaarigii qoyska wuxuuna ka cararay goobtii intii uu sii socday
ayuu xusuustay inuu guriga ku soo ilaaway mindiya oo uu watay. in kasta oo ay khatar ahayd, haddana wuxuu go'aansaday inuu dib u soo laabto oo uu mindidiisii soo qaato maadaama ay ula muuqatay arrin fudud. sidaas ayuu sameeyey. dib ayuu u soo noqday. si tartiib ah ayuuna mindidii u qaatay, kadibna guriga uga soo tegey. carruurta waxaanu soo sheegnay in uu laba dilay. saddexdii kale waxay ku maqnaayeen dalxiis. jir ah markii ay guriga ku soo noqdeen, waxay la kulmeen musiibadii ku dhacday qoyskooda. markii warka dilkani uu faafay, bulshadu ku waxaa soo food saaray cabsi iyo argagax fara badan. dadku waxay bilaabeen inay guryahooda adkaystaan. dukaamadii iibin jiray qufulada maalintaasi waa laga dhameeyey dhammaan qufuladii u yimid. qof walbana wuxuu isku dayey inuu fahmo ama uu jawaab u helo sababta qoyskan loo beegsaday. qoys aan waxba galabsan, cidna dhibaato u geysan, maxaa sababi kara in sidan arxandarada ah loo dilo? booliisku markii ay guriga yimaadeen, wax raad ah oo muujinaya cidda dilka geysatay maysan helin. sidaasi darteed kiiskan waxaa loo diiwaangeliyey inaan la garanayn cidda geysatay. muddo kooban kadib dilkii qoyska Otero, PTK wuxuu go'aansaday inuu fuliyo kiiskiisii labaad. markan wuxuu raadsaday gabar da'yar ah oo lagu magacaabo Katrina Bright, taasoo la noqday walaalkeed. markii ugu horeysay ee PTK uu arko Katrina, wuxuu go'aamiyey inay noqoto gabadhiisa xiga. wakhtigaas wuxuu bilaabay inuu si taxaddar leh u kormeero gurigeeda. kadibna wuxuu u jeestay Katrina isagoo isku dayay inuu ceejiyo, balse iyaduna way iska caabisay. markii uu ku guuldaraystay inuu ceejiyo, ayuu la soo baxay mindi. wuxuuna dhowr jeer kaga dhuftay caloosha iyo dhabarka, kadibna gurigii ayuu ka cararay. muddo kooban kadib, booliisku waxay soo qabteen 3 qof oo sheegtay inay iyagu ka dambeeyeen dilka qoyska Otero. sidoo kale waxaa jiray dad kale oo iyaguna qirtay dilkaas. ujeeddada ugu weyn ee ay dadkaasi u qiranayeen dil aysan geysanna waxay ahayd inay caan noqdaan, maadaama dhacdadu ay ahayd mid aad loo hadalhayay, dadkuna ay ka wada hadlayeen. wakhtigaas waxay ahayd arrin caadi ah in dadku ay sheegtaan dambiyo aysan gelin si ay caan u noqdaan. inta badan dadkaasna waxay ahaayeen dad qaba xanuuno maskaxeed. inkastoo ay wadnaayeen dadka qirtay dilka, haddana booliisku waxay si gaara u tuhunsanaayeen 3daas nin, wayna xireen. arrintani waxay si weyn u caawisay booliiska oo markii hore ku wareegsanaa cidda geysatay dilalkan. markii PTK uu maqlay in dilalkii uu isagu geystay ay rag kale si sahal ah isaga sheeganayaan, loona qabtay halkii uu ku farxi lahaa in tuhunkii uu ka leexday, aad ayuu u carooday. wuxuuna is yidhi, sidee qof kale si fudud ugu qaadan karaa shaqadii aan dadaalka badan ku bixiyey, magacan ugu heli karaa? bishii tobnaad sannadkii 1974 uu yaalay maktabadda dadweynaha ee magaalada Wichita ayaa laga helay fariin la yaab leh. fariintaas waxaa loo gudbiyey booliiska. markii ay booliisku akhriyeen, waxay si degdeg ah u xaqiiqsadeen in fariintan uu soo qoray wadaagii xasuuqay qoyska Otero. warqaddan dilaagu wuxuu ku sheegay in isagu uu ka dambeeyey dilka qoyska Otero, wuxuuna kula taliyey booliiska inay sii daayaan 3da nin ee ay xirteen oo ah kuwo magac oo keliya raadinaya. wuxuu fariinta ku daray faahfaahin dhammaystiran ku aadan sida uu dilku u dhacay, midhaha ay dhibanayaashu ku kala sugayeen, iyo waxa uu sameeyey kadib dilkooda. faahfaahintan ayaa ahayd mid uusan qof kasta ogaan karin, waxayna u xaqiijisay baarayaasha in qofkan uu yahay dilaagii dhabta ahaa. warqaddiisa wuxuu ku soo xiray halkudhigiisii ahaa Fine Torture Kill PTK, isagoo ku yidhi booliiska, si fiican u xifdiya halkudhigan, waayo waxaad ku arki doontaan dhibanayaasha dambe ee aan dili doono. 3dii bishii saddexaad sannadkii 1977 PTK wuxuu fuliyey hawlgalkiisii saddexaad. markan wuxuu beegsaday haweeney lagu magacaabi jiray Shirley Ryan. maalintaas PTK wuxuu tegey guriga qoyska Ryan, wuxuuna si tartiib ah u garaacay albaabka. nasiib darro, albaabka waxaa furay wiil yar oo 5 jir ah oo ahaa mid ka mid ah carruurtii ay dhashay Shirley Ryan. PTK wuxuu wiilkii yaraa u sheegay inuu yahay booliis. wiilkiina gudaha ayuu soo geliyey. markii uu guriga soo galay, waxaa ka hortimid Shirley oo ka soo baxday musqusha. waxay aragtay nin aysan garanayn oo gurigeeda dhex taagan. waxay weydiisay cidda uu yahay. wuxuu u sheegay inuu yahay sarkaal booliis oo doonaya inuu su'aal weydiiyo. Shirley ayaa ku tiri, intadan su'aal weydiin, maxay tahay sababta aad ii baarayso? sideese gurigeedu u soo geli kartaa adigoon fasax haysan? ma haysataa warqad ogolaasho? inta aysan hadalkooda dhammayn,
la soo baxay bistool madaxa ayuuna kaga qabtay. markaas ayuu ku yidhi waxa keliya ee aan doonayo ayaa ah inaan ku kufsado, isla markaana haddii aad oggolaato aadan samayn wax iska caabin ah adiga iyo carruurtaadaba waxyeelo idinma geysan doono, haddii kalena dhammaantiin waan idin dili doonaa. xilligaas Shirley waxay ku qasbanaatay inay oggolaato. carruurtii ayuu kaxeeyey wuxuuna geeyey suuliga, halkaas ayuuna ku soo xiray. markaas ayuu ku soo noqday Shirley. xilligan cabsi darteed Shirley waxay bilowday inay matagto. Peter Kane ayaa isku dayey inuu dejiyo. biyo ayuu u soo qabtay wuxuuna weydiiyey sigaar maanta. haa ayay ugu jawaabtay haa. kadibna xabad sigaar ah ayuu siiyey. markii ay dhammaysatay xarig ayuu qoorta kaga xiray wuxuuna bilaabay inuu ceejiyo. wax galmo ama kufsi ah umuusan geysan, balse intii ay nafbaxaysay umuusan geysan. markii uu dhammaystay wax walba wuxuu si degdeg ah uga cararay goobtii, isagoo ka baqayay in ninkeedii uu guriga ku soo laabto. sidoo kale carruurtii waxay bilaabeen inay qayliyaan. sidaasi darteed si uusan u fashilminna si dhaqso ah ayuu go'aansaday inuu guriga uga baxsado. markii uu baxsaday wuxuu booliiska u diray warqad uu ku sheegayay in isaga uu mas-uul ka yahay dilka Shirley. wuxuuna ku faahfaahiyey sida uu u geystay dilkaas. wuxuu intaa ku daray in dhibanaha xiga uu dili doono bisha 12aad. booliisku markaas kama soo jawaabin warqaddii uu u soo diray, wayna iska indhatireen. arrintan ayaa aad uga caraysiisay Peter Kane. sidaasi darteed wuxuu go'aansaday inuusan mar kale warqadaha si toos ah ugu dirin booliiska, balse uu u diray mid ka mida kanaaladii telefishan ee ka jiray magaalada si ay iyagu ugu gudbiyaan booliiska. maalintii xigtay wuxuu warqad u diray telefishan ka mida kanaaladii magaalada isagoo ka codsaday inay warqaddan gaarsiiyaan booliiska. warqaddan waxaa ku qornayd cabasho uu u jeedinayo booliiska, wuxuuna ku yidhi imise qof ayaad rabtaa inaan dilo si aad iiga hadashaan? goorma ayaad wararka iyo warbixinada igu soo qaadanaysaan? maxaa la iiga aamusan yahay oo la isaga kay indhatirayaa? gabagabadii warqadda ayuu ku taliyey in warbaahintu ay ka hadasho. wuxuu soo jeediyey magacyo kala duwan oo bixinta, balse wuxuu si gaar ah u xusay inuu aad u doonayo in loogu yeero Peter Kane. intaa wax ka badan booliisku way ka aamusi kareeyeen dilaagan iyo dembiyada uu geysanayay. waxay go'aansadeen inay bulshada u bandhigaan in dilaa geysanaya dilal taxane ah, weliba dadka si bilaa sabab ah u beegsanaya uu magaalada ku jiro. wakhtigaas taliyaha booliiskii magaalada oo la odhanayay Richard Lamonio ayaa qabtay shir jaraa'id, wuxuuna si cad u shaaciyey in dilaa la yidhaahdo Peter Kane uu si aan kala socod ahayn dilal uga geysanayo magaalada. wuxuu bulshada ku baaqay feejignaan in ay muujiyaan, isagoo intaa ku daray in caddaymaha ay hayaan ay muujinayaan in dilaagan uu yahay qof aad u halis badan, isla markaana ay dadaal badan gelinayaan sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa. inta ka horaysana wuxuu dadweynaha ku adkeeyey inay taxadaraan. 8 bisha 12 sanadkii 1988 Peter Kane wuxuu waqti habeenimo ah warqadda uga dhacay guriga haweeneyda lagu magacaabo Nancy Fox oo 25 jir ahay. wuxuu ku dhintay jiifka, halkaas ayuuna ku sugay ilaa ay shaqada ka soo laabatay sidii caadadiisa ahayd. ka hor inta uusan weerarin guri, Peter Kane wuxuu samayn jiray kormeer dhammaystiran, isagoo ogaanaya tirada dadka degan gurigaas, waqtiyada ay baxaan iyo waqtiyada ay soo noqdaanba. kadib markii uu helo xogtan ayuu weerarka fulin jiray. markii Nancy ay guriga ku soo noqotay iyadoo ku jirta jikada ayuu si kadis ah hal mar ugu soo baxay. wuxuu u sheegay isla qisadii uu dibanayaashii hore u sheegay, taasoo ahayd inuusan doonayn inuu dilo, uu doonayo keliya inuu kufsado, kadibna uu ka tegi doono. Nancy oo cabsi badan dareemaysa isla markaana dankeeda inay iska difaacdo ayaa aamustay. isagu wuxuu u fasirtay aamusnaanteeda inay raalli ka tahay wax kasta oo uu ku sameeyo. sida caadadiisa ahayd xarig ayuu ku xiray, wuxuuna bilaabay inuu ceejiyo intii ay naftu ka sii baxaysay. dabcanna inta ay dhimanaysay gabadhan wuxuu ahaa mid ku raaxaysanayay. markii ay geeriyootay ayuu goobtii isaga baxsaday si ka duwan sidii uu hore u samayn jiray. markan warqad umuusan dirin booliiska oo sidaynu hore u soo aragnay xilliyadii